allah ha u naxariistee dhowaan waxaa ku geeriyooday magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka marxuun maxamed sheekh xabiib oo ahaa ganacsade caan ah. maxamed ayaa lagu aasay magaalada Nadirdhabe. faahfaahin ku saabsan marxuun maxamed sheekh xabiib ayaa waxaa nooga soo koobaya noogana sheekeynaya taariikh nololeedkiisa mar kale wariye ciise axmed. مرحوم محمد الشيخ حبيب فريد oo sida buugu soo gacantiisa ku qoray laga helay taariikh ahaantiisa taariikh nololeedkiisa ayaa waxa uu sheegay in uu ku dhashay bishii Gumbood 22keedii sanadii 1954 magaalada Dirdhaba waxaanu waxbarashadii dugsigiisa hoose uu ka bilaabay sanadii 1963 dugsiga Xaaji Cali ee magaalada Dirdhaba oo waqtiga ah ilaa iyo fasalka afraad waxaanu ka baxay ilaa iyo 1967 tirsiga Itoobiya. kadib marxuumka ayaa waxa uu sameeyay dukaan yar oo ganacsi taasoo maalintii uu dukaanka ka shaqeynay balse si uu waxbarashadiisa u sii wato ayaa haddana dib waxa uu bilaabay dadaal kale oo uu sameeyay waxaanu ku biiray dugsiga loo yaqaan Rotterdam halkaasoo uu galay 1969kii isla markaana ilaa iyo fasalka 12aad uu ka dhameystay. marxuumka ayaa 1983kii waa uu guursaday kadibna 1993kii ayaa magaalada Dirdhaba iyo magaalada Harar uu ka sameeyay laba warshadood oo furunka soo saara isagoo ganacsigiisa si balaadhinaya. isla 1992kii tirsiga Itoobiya ayaa uu magaalada Naazireed uu ka sameeyay mashruuc uu ku dirayo baalka loo yaqaan atarka ama boolog eega afka Axmaariga loo yaqaan oo uu dibadda u dhoofinayo. isla 1996kii ayaa waxa uu furay warshada caamka ah ee haatan Aqwa Dirre la yiraahdo ee biyaha soo saarta oo ah warshadii ugu horeysay ee Dirdhaba ee biyaha soo saarta isla markaana magac qaadatay taasoo aan biyaha kaliya ku koobnayn balse soo saarta sharaabka kale ay ka mid yihiin Coca-Cola iyo waliba wax loo yaqaan raaniga. sidoo kale marxuumka ayaa waxa uu isaguna gobolka Jigjiga ama Faafan uu ka furtay warshad kale oo biyaha soo saarta taasoo ilaa iyo haatan iyaduna si buuxda u shaqeysa. sidoo kale 2005 ayaa ganacsigiisa uu sii balaariyay mar kale waxaanu ka sameeyay Taiwan magaalada Dirdhaba agagaarkeeda fooq ka kooban 4 dabaq oo ah meel supermarket ama waxa loo yaqaan mall market oo ah meel si buuxda ay dadku ugu ganacsadaan. sidoo kale xaruntii bunka ee uu ku lahaa agagaarka Jaamacadda ayuu markii uu daadku ka qaaday 1997 kadib uu meel kale u wareejiyay taasoo ilaa iyo haatan shaqeysa. waxaanu sheegay ama la sheegay bunka inuu u diro Boqortooyada Sacuudi Carabiya, Imaaraadka, Kuwait iyo waliba Bahrain. marxuumka ayaa xiriirkiisa ganacsi u gaaray wadamada Yurub intooda badan gaar ahaan waxa uu xiriir ballaaran u lahaa dalalka Germany, Netherlands, Switzerland, France iyo waliba bariga fog iyo bariga dhexaba China, Hindiya, Sacuudi Carabiya, Imaaraadka, Kuwait iyo waliba Bahrain. marxuumka ayaa sidoo kale waxa uu ku tala jiray sanadkan 2011 inuu furo warshad soo saarta caanaha balse inamadiisa ayaa sheegay inay halkii ka sii wadi doonaan isla markaana ay warshadan ay furi doonaan. waxaana marxuumkan u shaqeeya shaqaale ay tiradoodu gaarayso ilaa iyo 450 shaqaale ah. marxuum maxamed sheekh xabiib oo ahaa 50 sano jir ayaa waxa uu ka tagay ifka 4 wiil iyo 3 gabdhood iyo waliba 10 kale oo ay sii dhalay guud ahaanba waxa uu dhalay waxay sii dhaleenba 17 qof ayaa uu ifkan kaga tagay. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun.